kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii xusuusta qofka. barnaamijka iyaga ayaa toddobaadkan waxaa marti noogu ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. waxaan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha aqbalaadda uu ka aqbalay TV-ga Kalson inuu waqtigiisa wax ka siiyaan dareemi karaya inuu jiro ciriiri fara badan iyo shaqooyin fara badan oo qaranka u hayo. daawadayaal ra-iisul wasaaraha barnaamijkeenan kulamo wadaagi doona arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo xaaladaha guud ee dalka ka jira oo aan jeclaan lahaydeen inaan wax idinkaga weydiiyo ama aad wax ka ogaataan. barnaamijkan waxaa marka si gaara diiradda ugu saari doonaa nolosha ra-iisul wasaaraha, yaraantiisii, halka uu ku koray, waxbarashadiisii, inta uu ka xasuusto, sidoo kaleeto waxa uu higsanayo iyo markaa talooyinka iyo tusaalayaasha uu markaa noogu soo gudbin lahaa barnaamijka iyaga. ra-iisul wasaare, marka hore kusoo dhawow TV-ga Kalson iyo barnaamijka xusuusta qofka. anoo kaaga mahad celinayo waqtigaaga qaaliga waxaan jeclaan lahaa ugu horeyn inta aanan guda gelin barnaamijka bal in aad taariikh kooban meeshaad ku dhalatay iyo waqtigaad dhalatay iyo haddaad wax ka xasuusato. mahadsanid dulyar. waxaan anigu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb, magaalo madaxda gobolka Galguduud 1958 bishii iyo maalinkii oo go-an ma hayo, laakiin waxaa la ii sheegay November inay ahayd 1958 magaalada Dhuusamareeb. halkaasaan ku dhashay. dugsigii hoose ayadaan kasoo dhigtay, kii dhexe ayadaan kusoo waa u imaanayaa. waxaa ka horeeya dugsi quraanka. dugsi quraanka halkaasaad ku dhigatay. Dhuusamareeb baan ku dhashay, kusoo dhigtay. macallin Maxamed baa ii soo dhigay. aad iyo aad. ardadii qudheeda halkaasaan arday dugsi ma ka xasuusataa ardadii wax? si fiican baan u xusuustaa ardadeydii mid iyo hadday suurtagal tahay si wanaagsan baan u xusuustaa. Dhuusamareeb bay ahayd. dugsigii hoose iyo dhexe ayaan kasoo dhigtay. kii sare waxaan kusoo qaatay Xamar. jaamacaddii waxaan kusoo qaatay Gahayr, Muqdisho. noloshaydoo dhan waa Soomaaliyana waa jeclaa. waxaa iga warantaa marka dugsiga iskaba soo tag waxbarashada dugsiga dhexe iyo dugsiga sare, maadaama maadada ugu jecleed waxbarashada. waxbarashada aniga runtii kulli waa kuwana fiicnaa, waana wada jeclaa, laakiin meelaha aan aadka ugu fiicnaa waqtiyaal kala duwan bay ahayd. waqtiyadii ilaa iyo secondaryga iyo aan soo gaarahayay waxaan ugu jeclaan jiray taariikhda, oo si fiican inaan bal wixii tegay wax uga bartaan aada u jeclaa. waqtiya dhexe waxaan jeclaa sayniska. waqtiyadii u dambeeyana waxaan jeclaa maadada dhaqaalaha oo ah tii aan wax kusoo bartay. marka waqtiyadayda isbedelahaya bay la xiriirtay. dabcan maskaxdaydu say u koreysay iyo waayaadka aan develop garaynahayana waa ku xiray. marka runtii sidaas baan usoo arkahaya. waqti dheer baan soo qaatay, ilaa muddana waxbarashada waa kusoo jiray. waa tahay aada umahadsantaha ra-iisul wasaare. waxbarashadii iyo maadaama aan isku celcelinay, marka hore waxaan rabaa in qoys caynkee aad ka dhalata adiga? ma qoys faqiira, ma qoys ladan, ma qoys aqoon-yahana, ma qoys culamo ah, qoyska qoys caynkee aad ka dhalata? waxaan ka dhashay qoys caadi ah oo Soomaaliyeed baan ka dhashay, oo reer Dhuusamareebeeda. qayb kamida noloshoodana caawud waa kusoo qaatay. waxaan oran karaa aabbahay allah u naxariisto, hadda wuu dhintay. wuxuu u shaqaynayay wasaaradda xanaanada xoolaha muddo dheer, intii aan caqliyeystay ilaa iyo intuu kasoo dhintay. business wanaagsanna wuu lahaa. marka waxaan oran karaa qoys ahaan waxaanun ahayn family. marka la eego gobolada iyo Dhuusamareeb dadka dhanka dhexdhexaadka sare ku jiri kara baanun ahayn. mana anaan ahayn dad ay ka badatay noloshii iyo lacagtii. dad hooseeyana ma anaan ahayn. allah u naxariistay aabbahay wuxuu ahaa nin adag oo si fiican runtii u maintain gareeyey asaga iyo hooyadayba nolosha familiga. waxa family ahaan aanu u baahannahay iyo ilmaha aqoontooda iyo caafimaadkooda iyo inay dareemaan inay meel wanaagsan kasoo jeedaan, allah u naxariistay waa nagula dadaalay. hooyaday waxay dhashay 15 ilmood. anugu waxaan ahaa numberka 3aad. haddana way nooshahay iyadoo caafimaad qabta oo nolol badan allah u sii daayay u dhiman tahay.
oo si fiican u ladan ayuu haddana nooshahay. aabba waa dhintay, mas-uuliyad xoog lahu iska kaaya saaray sidaanu maaragtay runtii waktigii uu mas-uuliyaddiisa tooska aan u hoos joognay uu noo 15 marka wax siyaasad ka galaadaa ka jira 15 wax siyaasad ka galay waa jiraan dad aada wax u bartay oo maaragtay maanta sase aan siyaasad ku jirin soo sagalay. hadda anigaa si active ah siyaasadda ugu dhex jira. waa tahay aada umahadsantahay ra-iisul wasaare. intaa xasuusato waxaa laga yaabaa dad badan inaanay xasuusan. mar kale aan dib kuu celiyo yaraantaadii ilmuhu markay yar yihiin waxbay jecel yihiin inay ku cayaaraan. tusaale ahaan hadda adigu dhuusamare ma garan kara lakiin muqdisho kaleeto oo garangar iyo abitey iyo waxyaaba noocaasaa lagu cayaaraa. bal xagga maxaa looga cayaaraya yaraantaadi maxaa ku cayaari jirta adiga? dhuusamareeb choiceska ilmuhu aada uma badna. waa la ciyaaraa banooni, waa la ciyaaraa ciyaaraha kaloo ilmaha oo meelaha aan maaragtay runtii fursadaha badan ilmuhu aysan ahayn. laakiin runtii ma aanan ahayn dadka ciyaaraha aadka ugu dheerdheereeya. ma aanan ahayn runtii dadka aadka bulshada uga dhex muuqda. ma aanan ahayn. waxaan ahaa nin akhlaaqdiisu wanaagsan tahay, aqoontiisa ku eg, dariiqiisa yaqaana. marka runtii maanan ciyaar badnayn. dadka headlineka ku jira marka ardada la ahaa maanan ahayn. qof waxaan ahaa inta aan ka xusuusnahay noloshaydii oo dhan dowgiisa iyo dariiqiisa yaqaana. laakiinse wax gaar ah oo uu ummadda kaga dhex baxsan yahay aysan ahayn. laakiin waanu cayaari jirto ilmahaasaa la mid ahayd. ciyaari jiray, waan xusuustaa. waa ku fiicnaa bulshada dhexdeeda. wax weligay ceeb iyo dhibaato ah midna kuma aanan lahayn. laakiin waxaan garanahayaa haddii dadka aan dib u warsado nin akhlaaqdiisa iyo shaqadiisa ku adag yaan ahaa. dabeecad ahaan ma nin xanaaq badan baad ahayd, ma nin dagaal badan baad ahayd, ma nin qunyar socoda, ma nin maaragtay iska degan oo qabow? ilaan dhalinyaradu marka la yahay qof waa la kala firfircoon yahay. marka bal dabeecad ahaan maxaad ayadana ahayd? calaamaadka aan ugu fogahay waxaa kamid a xanaaqa badan. sida dadka aan ka maqlo anigana aan qiyaasahay inay sax tahay waa dulqaad badanahay. dawgaygana waan aqaanaa. waxaa ila gudboon haddaan garto wax dheeraada badanaaba inaan ku daro ma jecli. noloshana ma adkeeyo. maadan dagaal badnayn, ma caro badnayn yaraantaadi? noloshana ma adkeeyo. hadda ood xilka ra-iisul wasaaraha haysana waxba iskama kaa bedelin dabeecadaadi sidii? hawsha aan hayaa hawl caadi a maaha. guud ahaan siyaasadda soomaaliya hawlahooduna ma aha hawlo caadi ah. laakiinse dabcan saan ahaan jiray oo waktigayga u manage garayn jiray, saaxiibadayda ula xiriiri jiray, hawlahayga aan u qabsan jiray. dabcan waxbaa ka bedelmay oo mas-uuliyad ballaaran iyo hawlo aanan ku talagelin oo dhib badan baa saacad walba kugu soo dhacahaya. laakiin wax weyn inay iska kay bedeleen ma qiyaasi karahayo. gaar ahaan xagga maaragtay dhaqanka iyo carada iyo caynkaas haddaanan sii deginin caro iyo xanaaq iyo dhibaato iguma sii kordhin. hadda wararka yani kulle qof walba waa ogyahay waxa uu bulshadu waxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaare Saacid hadda wuxuu ku jiraa tiimka xanaaqa badan, dadka xanaaqa badan oo dulqaadka badan lahayn. waana keeni kartaa shaqada iyo hawsha culusada hayso. taa wax ma ka jiraan? taas iskuma aanan ogeyn haddaanan aanan ogeyn aanan dhaqankan hadda qaadanin. xanaaqu waa iga dheeraa. waana controli karaa temberkayga, waa controli karaa saan isku ogaa. dulqaadkana waa ku fiicnaa. waa tahay waktigaagii dalkaad joogtay waqti fiican baad ku qaadateen. dalka intii aad adigu wax ku baranaysay ilaa uu ka burburayana waad joogtay dabcan. bal waxaad warbixin yaro kooban iga siisaa markaad waktigaas dalka iyo dadka iyo dariska iyo sidaad bulshadu isku ahayd. bal sawir ka sii bulshada cusub hadda joogto. waktigii hore waktigii oo dowladnimadu jirto adigu aad wax baranaysay. inta lahaan annaga hadda waqtigan barina waa soo gaarnaa dowladnimadii. gurigan intaan ka baxnaa guriga dariskeena tagnaa wax ka cunnaan ka soo baxno. kan haddii aabba nagu caroodo halkaasaan aadi jirnay. dadku dad isjecel ay ahaayeen, dad wada socday ahaayeen. sida hadda xaaladdu tahay ma ahayn. marka adigu bal sawir yar naga sii waqtigaas dowladnimadu jirtay xilliga fiican ahayd aad wax baranaysay ama aad ku soo kortay dadka iyo dalku siduu ahaa.
dalka iyo dadku marxalad badan bay soo mareen dabcan 91 wixii 3 sano 4 sano oo ka horeysay qaska iyo ammaan darrada iyo dhibaatadu waa soo kordhaysay intii ka horeysana xasilooni badan baa runtii jirtay anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka uga faa'iiday intaan waxbarashada iyo dugsi dhexe intaan dugsi hoose intaan ka soo baxay ilaa jaamacad ilaa shaqo inta aan imid xasiloonidii Soomaaliya soo martay dhaqaalihii soo horumaray isdhexgalkii dadka fursadihii dawladihii kala duwanaa ay abuureen dadka ugu badan oo ka faa'iideystay jiritaankii dawladnimada Soomaaliya yaan ka mid ahay runtii ka soo qaad markii aan dugsigii hoose ka soo baxay dugsi dhexe oo diyaar ahaan si fudud Dhuusamareeb ugu helay oo asaguna aan lacag ahayn oo fudud oo si anoo gurigeygii jooga aan wax u baranayay dugsigii saraan sidaas oo kale fursadihii kacaanka oo baahsanaa aan ku helay jaamacad baan waxaan ku helay sidii si fudud oo imtixaankii caadiga ahaayoo ardadu ay galahayeen oo waxaan helay gahayr oo jiifka yaga iyo aqoontayada iyo weliba wax lacagna loo kugu daro ay ahayd iyo wixii caafimaad oo haddii ay dhibaato timaado waa fursado aan dalka laga helinin oo runtii qofka nooca yaga ah oo kalena aad runtii aan uga faa'iidnay fursadahaas waqtiga waxbarashada iyo dhalinyaranimada aadna waa ugu faraxsanahay ilaahayna mahadu ha ka gaadhay dawladihii kala duwanaa oo Soomaaliya wixii dawladnimadu dalkeena tartay dadkii ka faa'iiday kuwii ugu badnaa baan ahaa markay ka soo tagto oo waxbarashada dhamaystay muddo gaaban baan u soo shaqeeyay dawladda muddadii aan u soo shaqeeyay khibrad fiican iyo runtii farxad baan ka qaaday meel walbo aan tago waagaas mushaarku haba iska yaraadee dadka waa deeqi jiray khibradihii meelihii kala duwanaa oon ka soo shaqeeyay iyo dadkii aan dhex galay aad baan ugu farxay saaxiibo badanna waa ka sameeyay kadib muddo kadib waxaan ku biiray xagga ganacsiga halkaas inaan ku hakadaan rabaa waa tahay aad ma santa waa faham fiican hadalkaagaan rabaa inaan waxa iga soo dhex baxay maadaama dawladdii iyadoo dawlad jirto aad shaqaysay ra'iisul wasaare ma xasuusan kartaa mushaarka kugu horeeyay qaadatay si fiican baan u xasuustaa waxaan ka qaatay wasaaradda beeraha 1300 shilin shilin oo lacagtii Soomaaliga ahayd boqolkii iyo kun ma jirin ma saasaan xusuustaa aad baan ugu faraxsan shaqada marka aad ugu horeysay qabataan maxay waxaan joogay wasaaradda beeraha waaxda saadaasha hawada maasha Allah waa tahay aad ma santahay aan soo gudagala marka hadda waxa tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan xilkan sidee saacid ma adaa soo doontay xilkan maadaama aad dibadda jirto Nairobi inaad jirtaan ognahay oo markaan dambe ganacsiga u wareegtay mise waa lagula soo doontay waxa lagu yiri saacid ra'iisul xilkan adiga qabanaya markaan bal xilkan see marka lagu magacaabo adiga xilkan waxa weeye ayaamihii dambe oo Soomaaliya runtii siyaasadda Soomaaliya ay soo adkaatay waxaan ahaa dadka siyaasadda Soomaaliya aadka u daneeya ilaa iyo 15 sano u dambeeyay markii umuuraha Soomaaliya ay adkaadeen waxaan ka tirsanaa seerkala badan oo umuuraha Soomaaliya looga debate gareeyo aniga qudhaydu waxaan sameeyay forum la yiraahdo rajo oo saaxiibo badan iyo dad badan oo siyaasadda daneeya ay umuuraha Soomaaliya analysis ku sameeyaan dalkeena waxaan ku lahaa dana badan meesha la yiraahdo Nairobi oo deganaa oo aad ugu dhowna asna waxaan ku lahaa ka warqab iyo xiriiro iyo dana badan sida la adligeed marna kama aanan fogeyn siyaasadda Soomaaliya sidaas la adligeed baan markaan arkay inay muhiim tahay dalka in wax laga qabsado markii hadda aan dhalinta yaraa waxaan kaaga sheekeeyay sida dalkaygu fursadaha igu abuuray waxbarashada lacag laanta u heshay exactly markaan waxaan dareemahay markii dalkayaga fursadaha aan la raadin lahaa sida la adligeed 15 sano u dambeeyay anoo aan ra'iisul wasaare iyo calaamadaysnayn baan siyaasadda Soomaaliya iyo umuuraheeda aad u daneyn jiray anoo runtii aad uga gubanahaya dalkaygii sida uu hadda yahay si ka duwan inaan ku arko waxaan ka tirsanaa seerkala badan waxaan ka soo qayb galay hawlo badan oo waqti badan aan geliyay oo ah sidee Soomaaliya sidaan si ka duwan looga arki karaa sidaas baan anigu waxa weeye siyaasadda qayb ahaan aan ku soo galay ma aanan ahayn ra'iisul wasaare ma calaamadaysnayn
ma aanan ahayn laakiin waxaa ii calaamadaysnaa inaan dalka meeshii aan isbedelkii muuqday aan ka qaban karo aan ka galo sidaas baa maaragtay aan ra-iisul wasaare ugu dambeyntii ku noqday madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka soomaaliya meelaha aanu isku baranay waxaa weeye isbedel doonnimadii debateskii furnaa oo ka socday gudaha iyo dibadda xiriiro kamid aan asaga iyo saaxiibo badan oo maanta siyaasadda ku jira aan isku helay sidaa la aligeed muddadii u dambeysay waxaan kamid ahaa dad soomaaliyeed oo soomaaliya dantooda gaarka ah inay ka horumariyaan heshiis ku ahaa sidaas baan ra-iisul wasaarenimada ku gaaray xilkuna ima cajabinhaya xaqiiqatan markaan kuu sheego waxa aan qabanayno iyo isbedel doonnimada yaa aniga micna ii samaynaysa xaqiiqatan marar badanna waa iri sidaas baan marka anigu kusoo galay haddana sidaas baan ku jiraa waa rajaynahayaa wixii qalbigayga ku jiray markii aan siyaasadda soo doontay in ilaahay noo qaado haddana waa ku shaqaynaynaa waana qabaa intii hadda u dambeysay in isbedel aan ku haminayno dhankii aan jeclayn in soomaaliya u dhaqaaqday dhinacyada kale la gaari doono insha allah waa tahay aad u mahadsantahay ra-iisul wasaare markii laakiin waad iga sheekaysay sababtii iyo dadaalkii iyo sida aad u doonayso in soomaaliya isbedel wanaagsan uu ka dhaco laakiin markii koowaad ee lagu magacaabay ee la yiri ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa doctor cabdi shirdoon saacid culays maxaa dareentay waxaan kuu sheegaya culays iyo mas-uuliyad iyo wax badan baan dareema kolba waa kuu xaqiijinaya farxad dheeraada ma dareemin runta markaan ku waro maxaa yeelay waan aqaanay dhibta iyo culayska ay leedahay dhanka aan farxadda ka dareemay waxay ahayd waxaa kuu dagtay fursad aad soomaaliya wax ku tali karto dhankaas waa kaga farxay laakiinse waktigaygii xorriyadda lahaa noloshaydii aan familigayga la qaadan jiray aan saaxiibadayda la qaadan jiray inaan waayi doono sida hadda aan u waayay waan ogaa dad badan oo aanan cadaawad iyo xisaabtan gaara ka arkayn oon hadda ka arkay inaan kala kulmi doono waan ogaa dhinacyadaas kagama farxin dhinacaas aan kaga farxay waxaan ahay haddaan dalka loo dhiiran oo loo gelinin wax badan oo la jecel yahay loo waayin isbedelka aan jecel lahay ma imaanayo marka dhinacaas runtii marka la fiiriyo waa soo dhoweeyey laakiin mas-uuliyaddu wax lagu farxo maaha ilaa iyo hadda oo aan joogana markaan runta kuu sheego aniga ra-iisul wasaarenimada kuma raaxaysto xaqiiqatan wax lagu raaxaysto oo maksabaho weyn oo lagu faano oo badaa ma aha waa meel shaqo culus taalla hadda oo xilli adag ay ilaahay inta lagu hayo inuu ka fududeeyo ay tahay markii hal sano ka hor haddaan u qiyaaso maanta iyo hal sano ka hor waktigaan saaxiibaday u heli jiray waktigaan xaaskayga iyo caruurtayda aan jeclahay u heli jiray waktigii aan wax badan u heli jiray waktigii aan aadka u farxi jiray waa iga maqan yahay laakiinse wax kale oon kaga kalsooni badnahay baan geliyey oo ah wax soomaaliya ay u baahan tahay subaxii qiyaas aada u fiican 5 iyo barkaan badanaaba kacaa 5 iyo barka hawsha aynu bilowno marka aan qiyaas aada u fiican weli ma xusuusto 12 kadib waqti aanaan gaarin waa macnaha marka aan usoo laabano su-aasha ah waqtiga aad shaqadaada xafiiskaaga ka bilowdo iyo waqtigu dhamaado xaqiiqatan saaca islada 24 saac waa shaqada anigu qiyaas aada u fiican waxaan oran karaa 15 ilaa 18 saac weeye waqtiga iyaga shaqadu oo weliba mararka qaarkood ka tension badan hadday rabto dhaafi karta adoo aan garanayn welibana marka runtii waa shaqo mas-uuliyadeed oo in jazada iyadu ay noqon karto haddii dalka iyo dadka wax uga soo baxaan laakiinse wax lagu raaxaysan karo wax fudud wax maaragtay qof aan ajendo wadan uu u soo ordi karo ilaahay hortiisa maaha waa shaqo dhib badan waa shaqo ku fiican in aad wax aad kordhinaysid oo dhibtaas aad u gelaysid ay kuu muuqato haddaysan kuu muuqan lamana xamili karo mana fududa runtii waa tahay mar haddii ay sidaa tahay markii hore waxaad ahayd qof caadiya oo bulshadiisa ku dhex jira familkiisa ku dhex jira qofkuu rabo la sheekaysta qofkuu rabo u yeerta waktiguu rabo meeshuu rabo aada haddana waxaa tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya
bal waa laba darajoon u malaynayaa inay aada u kala fog tahay wax badan oo xorriyaadkaaga ood iga sheekaysana waad weysay wax kaleeto oo awoodo kaleetaana waad heshay oo aada rabto inaad dalka iyo dadkaba ku badbaadiso. isbarbar dhig bal marka adiga maxaa dabeecaddaadii iyo saaxiibadii aada lahaan jirtay iyo dhaqankaaga iyo maxaa iska bedelay? wax aada u badan baa iska kay bedelay. awaleyto waxaan ahaa qof nolol uu ku faraxsan yahay. horta ilaahay mahadiisa intaan xusuusto ilaa iyo dugsi hoose kasoo bilow ilaa iyo waktigii ugu dambeeyey oo Soomaaliya dhibaatadu ka dhacday, marnaba waxa weeye nolol aan farxad lahayn weligay kuma noolaan. weligay waxaan ku noolaa ilaahay mahadiisa nolol farxad leh. meesha aan ku noolahay iyo dadka aan ku noolahay aan aada u jeclaa, aan isbedel aan u jeedo aan kordhinahay. markaan galay waxbarashada waxbaa ii kordhayay maalinba maalin ka dambaysa. markaan shaqada galay waxbaa ii kordhayay. markaan businesska galay waxaa ii kordhay wax aanan noloshayda ku kordhin karin muddo mucayin ah aan lagu sheegi karin. waxaan sameeyey business aada u fiican, haddana business aada u fiican waa leeyahay. marka meel aan tago oo aanan faraxsanayn aanan ka bixin ma arkinin. hadda iyo shaqadan runtii sidii waagii hore uma saaxiibo badni, sidii waagii hore uma wakti badni, sidii waagii hore oo kale waxaan rabo ma samayn karo oo si farxad leh dariiqyada uma marmari karo. waxa weeye noloshaydii oo dhan waxay noqotay nolol public ah. haddaan damco hadda inaan kula sheekaysto qof baa idaba taagan. haddaan damco inaan maaragta xorriyaddayda qaato ma qaadan karo. sidaasina sidii aan jeclaa aniga ma aha markaan hadda kuugu talagalo. laakiin waa aqbalay, runtii waa aqbalay. nolosha awgeed baan u aqbalay. laakiin wax aan ku raaxaysanahay oo jeclahay maahe, waxaan u jeclahay sidaas danta guud iyo tan dalka yaan u jeclahay. hadda waa aqbalay, waase jeclahay noloshayda siyaasadda mararka kamida inay gabagabowdo insha allah. mar haddaad ra-iisul wasaarihii Soomaaliya tahay, bulshadoo dhan kulamaad la qaadanaysaa. waa aragtay 18 saacadood qof shaqaynaya, dabcan ummadiibu qaybaheeda kala duwanaa casuumaya oo la kulmaya oo la sheekaysanaya, shaqo ku jiraa. dadka ku yimaada waxyaabaha ugu badan ay kala hadlaan maxaa ka mid ah? waxyaabo kala duwan oo aada u badan. waxyaabo aada u badan. dadka Soomaalidu waa dad aada u wanaagsan, mararka qaarkoodna waa dad aada u dhib badan. mararka qaarkood afkaar culus oo dalka iyo dadka wax u ah oo aqoon ku dhisan oo micno leh oo tan dawladdu ay wado mid u dhiganta ah haddaysan mararka qaarkoodba kaba badnaan karinin. dad kuu keena waad arkaysaa. dad kuu keena maxaa anaga qabiilkayaga iyo dantayda gaarkaa iyo aniga maxaad ii haysaa waad arkaysaa. dad kuu keena wax gaar ah aniga itar waad arkaysaa. runtii markaad xafiiskaada kala fadhidid waxaad arkaysaa midabada bulshada oo dhan, midabada dadka oo dhan baad arkaysaa. haddaadan dulqaad iyo taxadar badan lahayna gafaf badan baad gelaysaa. ma jirtaa dadku yiraahda ra-iisul wasaare waa qaldan tahay oo ma ka aqbashaas adigu marka lagu yiraahdo waxaas waa ku qaldan tahay? waa soo dhaweeyaa haddaan arko qofkaasi inuu si dhab ah oo constructive ah uu iigu sheegahayo waa la kulmaa. waa soo dhaweeyaa. laakiinse badanaaba madaxdu dadka Soomaalidu uma badna inay madaxda horteeda xoog wax uga dhaliilaan. uma badna. waa lagu ammaanahayaa, waxna waa lagu weydiinahayaa. marar badanna talooyin culculus oo aad ka helaysid baa lagu siinahayaa. runtii waxa weeye madaxnimada mararka qaarkood waxyaabada aan ka bartay waxa weeye waxna waa kuu fududayn kartaa, waxna waa kugu arki kartaa. waxaad fursad u helaysaa caqligii, taladii, dadaalkii dadka Soomaaliyeed haddaad isku aadin kartid oo sida fiican uga faa'iideysan kartid, kadibna adaa noqonahaya qofkii waxaa sameeyey. waa wax dad kuula yimid, waa waxaad organize garaysay, waa waxaad adigu isku aadinta maahe ka badan aad lahayn. waa fursadda madaxnimadu ay leedahay. mararka qaarkoodna waxaadan mas-uul ka ahayn yaa culayskooda kugu dhacahaya. waxaa tiribaa si kale loo qayb qaadanaya. marka madaxnimada iyo kursigan oo kale ma fududa. waxaad markasta marka diyaar u ahaanaysaa
caqabado badan eedo iyo- adan lahaynna inaad qaadatid Sax. wax hadday rabaan horay usoo xumaanahayay oo aan ankacayna inaad maaragtay mas-uuliyaddeeda qaadatid wax adigu aad qeyb yar ka ahayd oo abaabul yar aad gelisidna ammaanteeda iyo creditkeeda inaad qaadatid Aad iyo aad. marka meelaha ay gaarka ku tahay oo maskaxda ballaaran iyo dulqaadka ay uga baahan tahay waxa weeye dadka waxa uu qabsado iyo waxa uu haleeyo labadaba waxa weeye aday ku ooleysaa waktiga adiga aad joogtid marka inaad nasiib badan tahay waa muhim Aad iyo aad. inaad maaragtay shaqo badan tahay oo wax isku aadinta aad u taqaanid waa muhim Sax. inaad shaqo badan inaad maaragtay qabatid xiriirka dadka inaad ku fiican tahay waa muhim sababtoo ah waxa qabsoomahaya iyo waxa haleysmahaya dhammaan waxa businesskaagu waa businesska dadka oo dhan oo la isku daray taasina waxay u baahan tahay runtii wax in la isku aadiyo isku aadaatid muddada sanadka hadda aad joogteed ra-iisul wasaaraha ahayd ee siyaasadda ku dhex jirtay mid iyo laba waayo aragnimada adiga ahaan kaaga korortay adiga maxaa waayo aragnimada kaaga kordhay wax badan baa iga kordhay waxaan bartay dadka iyagu dad fiican inuu yahaan bartay waxaan bartay mushkilada soomaaliya inay tahay in la bilaabo sida loo bilaabana ay suurtagal tahay in degdeg wax isaga bedelaan waxaan bartay inay muhim tahay madaxdu inay dulqaad badan la timaado waxaan bartay in dalka soomaaliya dhibka gaaray awgeed in dowladdu keligeed in loo fadhiyo aysan ahayn ee dadka fursad la siiyo si ay dadku wax uga bedelaan shaqooyinka la qabanaya hadday tahay ammaanka oo kale in aan ammaan dowladda ka yimid keligiis usan fursad badan lahayn oy tahay in laga qeybgeliyo dadka ammaanka dibidhiska oo kale in dadka laga qeybgeliyo inay muhim tahay federalismka oo kale in dalka la engage gareeyo inay muhim tahay in dadka dhalinyarada oo tirada badan la barto sidii loo howlgelin lahaa dhanka marka aan ka arkahayo fursada badan iyo dhanka aan dadkayaga ka bartayo waa meelahaas iyo meelaha kale oo dhan waa tahay hadda soomaaliya waxaa la yidhahaa dadka adduunka ugu xilka jecel waaye haddii la yidhaha hadda hala tartamo ama doorasho hala gaaro 40-50 qofaa laga yaabaa kursigaaga adiga ra-iisul wasaaraha inay usoo istaagto boqolaalna ay usoo istaagaan kursiga madaxweynaha guddoonka baarlamanka xildhibaanada iska badaa warkooda kursigan marka maadaama sanad ah ku fadhiday macnee bal qeex dadka soomaaliyeedna u qeex daal iyo raaxo muxuu leeyahay kursigan maxaa loogu soo ordaa dhaqanka bini aadamka oo soo jireenka ah hadda ma bedelmahayo weligeedii allaheed bay jirtay in dadku saldanada iyo kursiga ay jecel yihiin hantida ay jecel yihiin nolosha meel laga arki karo inay taagaan kuwaasi wax dadkeena gaar u amaaha waa wax dadka bini aadamka oo dhan ay ka siman yihiin gaar ahaan dadkeena marka la fiiriyo waxa weeye waa dhab waa la jecel yahay xilalka nooc kasta ha noqdee waa la jecel yahay madaxnimada taasina waxa weeye qayb ahaanna dhaqan bay ka tahay qayb ahaanna waxaa dhici kardha dad afkaar ay gubahayaan oo raba waxay wadaan meel inay la tagaan oo caddeeyaan rabaan qayb ahaan inay ka mid tahay kuwo sideeda kale isaga jecel oo kursiga jecel way dhici kartaa kuwo asbaabo hadda aanaan wada xusi karin u jecel way dhici kartaa kursiga in la jecel yahay waa dhab laakiinse marka lagu fariisto sida uu yahay runtii hadalkaygu qofna soo diyaar garoobay u malayn mahayo inuu celinahayo uu maaragtay waxaynahayo qof maqnaana inuu dhiirigelin badan sii karahayo u malaynan mahayo laakiin runtii marka aan sheego kursigaani ma aha raaxo ma aha waxa weeye shaqo badan walwal badan adkaysi badan wax badan buu u baahan yahay runtii wax aada u tiro badan buu u baahan yahay gaar ahaan markaad usoo doonatid inaad wax ku kordhisid inaad magaca keliya kala tegtid adan u imaanin marka runtii howlahaasi waxaa loo dulqaadan karaa inta isbedel ay wadaan oo dhinaca kale markaad fiirisid aada leedahay kanaa ku gaaray laakiin kaas iyo kaas baa ka soo baxay waxaa dhici kari lahayd dalkaaga inaad wax u badbaadisay
noloshuna waxa weeye inta muuqataay waa yar tahay laakiin nolol micno leh oo gadaale iyo taariikh baad ka tegaysaa halkaasay micno ka leedahay laakiin hadda taan ku jirno nolol badan iyo raaxo badan runtii xilliga daalka la marayaa mar haddaad siyaasaddii soo gashay yaad isugu dhowdihiin oo saaxiibo la tahay siyaasiyiinta soomaaliya hadda marka la fiiriyo nolosha soomaaliya markaad geshid qofka mas-uulka oo kursigaan oo dhan oo kala fadhiya dadkoo dhan inuu u noqdo aabe la saaxiibo usan hinaase kala gelin u sinaado waa caadi anigu sidaas baan ku shaqeeyaa waxaan saaxiib la ahay oon isugu dhowahay dhammaan golahayga wasiirada oo dhan oo shaqada tooska naga dhaxayso waxaan saaxiib la ahay madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka kuwaasna waxa weeye waa saaxiibada shaqada saaxiibadaydii hore way yar tahay inaan wakti isugu helo anoo jecel oo aada ugu raaxaysta hadda marka saaxiibada shaqada yaa kow ii ah saaxiibada shaqadana waa golahayga wasiirada ayagana aad baan isugu dhownahay waa tahay dadka kale oo shaqadu isku kaaya xirto iyo dadka Soomaaliyeed oo guud ahaantiis waa tahay inta badan madaxda qaranka sida lagu arko aad bay u adag tahay qudhayda markaan ka soo qaado waqti dheer aan arrinkan raadinayay inaan markaa suurtagal noqdo caawa ilaahay qadaray waxaad mas-uul ka tahay marka shacabka Soomaaliyeed marka la yiraahdo waliba xukuumadda iyadaaba si gaar ah hawsha u qaabilsan sidee ku ogaataa marka adigu ka ra'iisul wasaare ahaan dhibaatada bulshadu qabto ama dulmiga ama cadaalad darrada ay tabanayaan ma jiraan maalmo ama maalin aad u qorshayso inaad kulamo la qaadato si aad u dhageysato cabashadooda wax badan aad uga ogaato nolosha bulshada ama shacabka aad madaxda u tahay waxa ay ku nool yihiin sidee ku ogaataa marka dhibaatooyinka bulshadu ay qabaan waxaan ku ogaadaa runtii waxa weeye golaha wasiiradu waxay toos uga shaqeeyaan wasaaradaha dalku waxay toos uga shaqeeyaan dalka howlaha ka jira oo dawliga toos ayagaa lagala xiriira dadka waxaanu la leenahay xiriir toos ah oo ama ha noqoto madaxda dhaqanka ama ha noqoto civil society-ga ama ha noqoto dadka business-ka sameeya dadweynahana waxaan leeyahay xiriir aada u dheer waxaa kaloo jirta xafiiskayga maalin gooni ah oo maalinka kulanka dadka la yiraahdana waa leenahay laakiin maalinkaas laba iguma sime maalin aan ugu yaraan 4 saac 3 saac kulanka dadku iga qaadanin ama xafiiska ha noqdo ama guriga private-ka ha noqdo ma jirto marka runtii xiriir wanaagsan baan ama dhanka shaqada kula leeyahay ama madaxda dadka Soomaaliyeed ama shakhsiyaad caadi ah oo aan hadda bartay ama aan horay u bartay ha noqoto intaas waxaa ii sii dheer meelaha aan farxadda ka helo xaqiiqatan qofka bini aadamka ahi mararka qaarkood waa inuu farxad helaa waa inuu dareemaa wax kale meelaha aan farxadda ka helo waxaa kamid a marka aan dadka dhex galo oo tusaale oo kale hadda sanadkan bilowgiisii oo kale Soomaaliya oo dhan baan soo maray kulli gobolada Soomaaliya oo dhan baan soo wada maray ma qiyaasi kartid meesha farxadda ugu badan aan ka helo waa mararkii kugu fiicnaa marka bulshada dhex gashay markaan dadka dhex galo waxaad leedahay Twitter in ka badan 9,000 ku jirta Facebook-na waad leedahay dhalinyaradu aad bay u isticmaashaa halkaas ka waran bal bulshada wax kaga ogaataa xiriirka meelaha taakili ama xiriirka gobolada waa leeyahay waana meelaha aan farxadda badan ka helo xiriirka dadka aan siyaasiyiinta ahayn oo dadweynaha ahna ama dhalinyarada ha noqdo ama bulshada rayidka ha noqdo ama maaragtay dadyowga business-ka sameeya ha noqdo ama odayaasha dhaqanka ha noqdo marar badan baan ayagana waqti badan baan u helaa oo maalin walba ku jira halka maalin oo assigner-ka aan ahayn iyo markaan goobahooda ugu taga aan ahayn runtii mar kasta oo nolosha xafiiska ka baxo oo tan dadka toosaan u helo wax farxadahan helaa ilaahayna bini aadamka waa u sameeyayo haddaadan qayb noloshaada kamida aadan ka helaynin ma soconayso ilmaha hooyooyinka iskoolada isbitaalada meelaha kala duwan oo tago mar kasta runtii waa qiiroodaa maalinkaas iyo habeenkaasna si fiican baan u seexdaa marka dhexgalka bulshadu hadda waxa weeye kii aan ka heli jiray saaxiibadii aan waqtiga u waayay
dadkoo dhan baa hadda saaxiibaday noqday. aaladan social network-ga ah waad isticmaashaa soo maaha? waa isticmaalaa. Twitterka iyo Facebook waa isticmaalaa. ma jiraan wax fariimo ama talooyin lagugu soo gudbiyo ka ra'iisul wasaarahan? aada u tiro badan, aada u tiro badan. waa meelaha aan wax ka barto, aan wax ka ogaado. fariimo fiican iyo kuwo xunba waa ka helaa, laakiinse kulligoodoo dhan waa isku miisaamaa. wixii aan arko inay xaq tahaana ka qaado, dalka iyo dadka wax u tarayaan waa fikradaas oo ka qaadanaysaa. waa soo gabagabaynaynaa waraysiga, meelihii dambaan soo gaarnay. waktigaaga yarkaah ee firaaqada aad hesho maxaa qabataa? hadda waa igu adag tahay inaan dib inta u fiirsho. waktigaas waktigaygii firaaqada weeye inaan dhaho waa igu adagta, runtii waa igu adag tahay. hadda sanadkii aan soo dhaafnay wakti aan u bixiyo waktiga firaaqada ma haysto, ma xusuusto, runtii aada uma xusuusto. laakiinse waxaan dhahaa waktiga shaqada adag iyo waktiga shaqada caadiga, maybe inay waktiga firaaqada saas ugu dhowdahay. waktiga aan dadweynaha la kulmo iyo waktiga aan meelaha bulshada tago, meelahaasaan waxaan u aqaanaa waktigayga firaaqada. laakiin wakti firaaqo hadda halkii sano waa iga go-an yahay. sidaasna maaragta waa ogahay inaysan caafimaadkayga u fiicnayn, waa ogahay inaysan nolosha u fiicnayn, laakiin waa danta iyo duruufta aan la kulmay sidaan ka helay oo inaan u noolaado ay khasabka tahay. maybe sanadka dambe, sanadka kusii xiga inaan heli doono wakti fursado, laakiin hadda ima muuqan. familka ka waran, qofka hadduusan familkii isaga iyo caruurtii iyo familkii is arkin, arrintaasi aaday ugu adag tahay. marka wakti intee leegaad u heshaa iyaga laftirkooda inaad, waayo waajib ku saaran wey? anigu aad waxaan ahay family man, dadka aadka u jecel xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ku dhex jirkiisaan ahay. waktigaygii aad buu u yaraaday, runtii wakti uma helo. waxaan xooga saaraa bal inaan isku dayo marka saacadaha yarkaahoo hadday noqoto inaan xafiiska kasoo baxo markaan qadaynahayo, inaan xaaskayga iyo hal qof oo ilmo ah aan la qadeeyo hadday ii suura gasho. maalintaas aad u farxdaa? waa farxa, laakiin maba helo runtii markaan kuu sheego. u malayn mahayo hadda oo kale dib haddaan u fiiriyo, maalin walba waxaa ila qadeeya dad, maalin walba waxaa ii yimaada bulsho ama anaa meel kala jooga. waa la ahay waktigaas. hadda haddaan tusaale fiiriyo, wakti aan caasho iyo khiyaarka la qadeeyo ma xusuusto. labadua hadda waa ila joogaan, laakiinse ma xusuusto saddexdayadu wakti aan wada qadayn. caruurta waa imisa? caruurtaydu 4 wey, 2 wiil iyo 2 gabdhood. waa 2 iyo 2. gabdhaha iyo wiilasha kuwaad u roon tahay adigu? markaas kulli saaxiib gaara la tahay? ilmahaygoo dhan waa wada jeclahay. waa ilaahay, waa nimco ilaahayna siiyey. kulligoodoo dhan way wada fiican yihiin. anigu laakiin waxaan u janjeeraa dhanka gabdhaha xaqiiqatan. aad iyo aad. hal qoysaad leedahay, hal family aan u malaynaya. wax kale hore ma u guursatay? maya, weligeyna ma guursan. jacayl kale ma jiro? weligey maaragtay cid ma lugoyn. haye oo waa ku guursanaya ma oranin. haddana qorshaha iguma jirto. haddana kuguma jirto. familka allah ku barakeey. waa tahay cuntada noocee ugu jeceshahay? inkastoo aad ii sheegtay inaadan caruurtiiba helinba iyo familkiiba aadan firaaqo u helin, oo aad gacanta la gashato tiim wada socdaa, adiga shaksiyan in lagu kariyo oo si gaar aad u cunto, ama aad jeceshahay si gaar u jeceshahay cuntada? cunada aniga aan jeclahay waxaa weeye cunada simbalka yaan jeclahay, oo maaragtay cunna Soomaaliga. cunna Soomaaliga ayaan aad u jeclahay. ma jeceli waxyaabaha sida gaarka ah oo badan loo diyaariyo. aniga marka runtii la fiirsho, very humble personality baan ahay, person baan ahay. in wax la adkeeyo ma jeceli. in dhan walba canjeeladaada iyo soortaada iyo cambuuladaada iyo nolol Soomaali rasmi ah taasay iigu baxdaa. raaxada badan aan ka helaa. aad iyo aad. ima cajabiso in wax badan oo maaragtay kababadina iyo wax badan oo waktiga iyo maskaxda iyo say tahay ma aqaan, iyo backgroundkayga si kasta ha noqotee, runtii waxaa weeye nolosha caadiga ah yaan aada ugu jeclaa. waad ii sheegtay cayaaraha inaadna isku fiicneen, sugaanta say isku tihiin marka?
aad baan isugu fiican haye waa kaas ma dhagaystaa ciyaaraha laftigooda footballka aad baan ugu fiican ciyaaraha ma daawataa aad baan u daawadaa football waqtigii markaan dib kuu celiyo dowladnimadu jirtay dalka horyaal yaa ka socday naadiyadii dalkeenna horseed madbacadda waxool minishibiyo kada fulaan ma jira kooxaad adigu taageeri jirtay anigu weligay horseed baan taageeri horseed ciidanka xoogga dalka waa kaas hadda markaan burburku dhacay dadkii waxaa inta hadda inkastoo garoomadeennii dib loo soo nooleynayo ciyaartooydeennana ay rajo fiican qabaan ilaahay noo siyaadeen leh laakiin waxaa loo leexday dhinaca ciyaaraha Yurub ma daawataa kuwa waan daawadaa markaan fursad helo waqtigaa aad iigu yar kooxa taageertaa ma jiraan ama qaran aad taageerto waan taageeraa waxaan aad u taageeraa kooxaha ingiriiska iyaan xoog u taageeraa qaarkood waase waqtigaas Liverpool Manchester Arsenal Arsenal baan taageeraa waa tahay aad aan kaaga mahadcelinaya waa tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markan qofku bini aadamka wuxuu jecel yahay in wax looga sheekeeyo dad baa waxay jecel yihiin dagaalada looga sheekeeyo dad baa waxay jecel yihiin in jacayl looga sheekeeyo dad baa waxay jecel yihiin in looga sheekeeyo film hadda ay soo wada daawadeen adigu maxaad jeceshahay ra-iisul wasaare in lagaaga sheekeeyo marka aad rabto inaad qof wax ka dhagaysato aniga waxaan jeclahay sidaydaba inaan dhagaysto oo ku raaxaysto sidii dadkii dalalkooda wax ka soo bedelay taasaan jeclahay taariikhdan jeclahay historiga dalalka hadda Nelson Mandela kaleeto isbedel not only dalalka horumaray iyo kuwa dib u dhacay midna ma ahe isbedelka dadka u taagan iyo qaabkay u nool yihiin iyo siday afkaarta u helaan anigu taasaan ka yar helaa si aad wax uga faa'iido saan wax uga faa'iido iyo hobby ahaanna waa jeclaa waata si isbedelka u yimaado maadaama adigu isbedel markii horeba aad qiyaas fiican isbedelkiina waa rajaynaysaa in Soomaaliya muddo 4 sano insha Allah waa rajaynaa tan iyo intii aad kursiga ra'iisul wasaaraha ku fadhiisatay lacagta 1,000 shilin Soomaaliga ma isticmaashay wax ma ku gadatay waa jeclaan lahaa inaan ku gato laakiin fursadii aan wax ku gadan lahaa baan la ii samaynin runtii dollar iyo shilin midnaba shilinna gacan jeebkayga maysan soo gelin runtii haba yaraa sax midna ma soo gelin waa tahay haddii lagu soo bandhigo mustaqbal baan soo gelin xaqiiqatan haddii lagu soo bandhigo mustaqbalka in aad Soomaaliya madaxweyne ka noqoto maxaad yeeli lahayd mase kugu jirta adiga rajada runtii nolosha siyaasadda ma jecli inay ugu dheeraato aniga waxaan jeclahay wax la taaban karo meesheen ku gaaro inaan kaga haro hadda ra-iisul wasaaraan ahay ayadaan ku qanacsanahay iima qorshaysna hadda inaan madaxweyne isu sharaxo xaqiiqatan ugu dambeyntii waraysigan see u aragtaa marka noloshaada wax lagaa weydiiyo waraysigani waxa weeye waa ku degay waxaan u arkahayaa si anoo relaxer ahoo aanan wax badan gocasho dheeraada sameynayno qof caadi ah yaan waraysigaan samaynahayaa waana ka helay runtii waana ku mahadnaqahayaa runtii adoo mahadsan marka fursadda ugu dambeysa talada shacabka Soomaaliyeed iyo waanadaada iyo tusaalahaaga aad u jeedin lahayd hay soo dhaw waa fursaddan inaad isiisid waa kaaga mahadnaqahayaa waxaan oran lahaa dalkeennu meel adag buu marahayaa in wax la bedelo dhinac marka la fiirsho wax adag ma aha dhinac marka la fiirshana wax fudud ma aha laakiin waxaa fiican shaqooyinka adoo aanan fatiig iyo dhib badan iyo hawl badan marin ilaahay kuu fududeeyo adigana sida kal iyo laabta ah kaaga yimaado inaan dalkeenna isbedel gaarsiino ma adka waxaa ka sokeeya in qof walba in dowladdu wax walba qabatana wax loo fadhiya ma aha suurtagalla ma aha dowladdu hadday la timaado tusaale fiican hadday la timaado madax lagu dayan karo oo dariiqa saxda ahna u dhaqaaqa waxa ummadana u nabadgelisa ballankay qaadana ka dhabaysa way ku fiican tahay shaqadeedana ilaa iyo heer wax ka qabata dadka Soomaalida waxaan ugu baaqahayaa qof kasta meeshuu joogo daldhis ha noqdo qof kasta meeshuu joogo ammaanka inta ku filan ha ka qabto qof walba meeshuu joogo waxsan Soomaaliya ha ugu rajiyo waxaasoo la isku daray ayadoon qofna culays ku noqon bay isbedel buuxda keeni kartaa sidaa la aligeed waxa aan kula ballamahayaa waxa weeye isbedelka wax hal meel ka yimaada oo si xanuun badan ku yimaada yaan laga dhigin aan fududayno aan u bedelno nin walba gurigiisa
nin walba ammaankiisa inta ku filan, nin walba mas-uuliyaddiisa, nin walba ilmihiisa oo uu waxbaro, kulligoodoo dhan waa wixii dalka iyo dadka bedeli lahaa. waxaan intaas ka sokow dadka Soomaaliyeed si fiican ugula dardaarmaya. dal ballaaran baan leenahay oo qani ah, oo istiraatiijika, oo caalamku indho gaara ku eegayo, oo haddii dhowr iyo 20 sano uu xaalad adag sii ahaa caalamka maanta aan iska bannaanaan karin. si aan dalkeenna u yeelanno, si dowladnimadeenna aan u soo ceshano, qof walba maxaa dalkaaga u qaban kadhaa su-aasha ah ha isweydiiyo. haddaysan taasi dhicin, waxaan qabaa dalka sidan u sharafta badan, meesha istiraatiijiga ku yaal, dadka qiimaha la leh, iskama sii bannaanaan karo. haddii dhibtu nagu raagtana waxaa dhici karta meel anaan hadhow wax badan anaan ka qaban karin inaanu gaarsiino dalkeenna. waxaan oran lahaa ha laysu samro, ha loo turo dalka, idinku isu tura. Soomaaliya inay badbaado mas-uuliyad hal meel ka imaanaysa yaan loo arkin, mas-uuliyad dowladda loo daayo yaan loo arkin. badbaadada Soomaaliya waxay u baahan tahay qof kasta inuu wax un ku daro, in la isweydiiyo maxaa dalka u qaban karaa. aniga messagekaas yaan ummadda Soomaaliyeed u dirahayaa. marka aan saas leeyahayna waa wax qalbigayga ka soo go-ay, waa wax aan igu fududayn. waxaan ogahay meesha Soomaaliya maraysaan ogahay, baan ogahay. hadday sii socoto waxaa dhici karta meel dowlad inta gadaal looga fadhiisto oo dowladdu maysaas qabato inay ka gudubtaa dhici karta. gacmo wada jiray wax ku gooyaan marka qof walba leeyahay cid gaar u leh ma jirto. waa iska xil saaraysaa dowladdu inaan dalka Soomaaliya usan mudan meel usan xaq u lahayn. dadka Soomaaliya in dowladda la garab istaago, dalkana loo turo, loona samro. in laysu turo, loona samro yaan aad uga dardaarmahayaa. waktiga adagna allaha na gudbiyo, si wada jir ahaana looga bixi karaa. fariintaydi dadku wataas. waa tahay aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa ra-iisul wasaare. guud ahaan daawadayaal, barnaamijkii xusuusta qofka oo toddobaadkan aan uga mahad celinayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon doctor saacid, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono oo anigoo dul yaraho idin leh nabadgelyo. mahadsan. ra-iisul wasaare aad baa mahadsan. Thank you.